nabadgelyo. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Sharaf iyo karaamo iyo ciise Rabbi dushiina ha yeelo. Anigu waxaan ahay Sidi Cali Macalin Ibraahim. Kanina waa muuqaal kale. Ilaahay waxa uu inoo oggolaaday in aan gaarno sanad kale, kuna gaarno cafi iyo caafimaad. mahad dhammaanteedna Rabbi ayay u sugnaatay. Waxaa inoo dhashay sanad kale oo uu Rabbina waafajiyey inaan bilowgiisa aan gaarno. Inkastoo aanan ogayn inaan dhammaysan doonno, Rabbi waxaan weydiisanaynaa cafi iyo caafimaad iyo in uuna gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa si caafimaad uu ku jiro. Sanadkan waa fursad kale oo uu Rabbi noo oggolaaday inaan gaarno, farxadna aan wada qaybsanno. Bishaan aan ku guda jirno waa bisha Muxarram, waxa uuna Rabbi dhexdeeda dhigay maalin islaamka oo dhan sharaf u leh. Maalinkan waa yoomu Caashuuraa oo ah maalin ummadda islaamka oo dhan sharaf iyo ciise u leh. Yowmu Caashuuraa waa maalin leh dhacdooyin aad u fara badan. dhacdooyinkeedana waxaa ka mid ah: yowmu Caashuuraa waa maalinkii nebi aadam Ilaahay ducada ka aqbalay. waa maalinkii nebi Yuunus calayhi salaam Ilaahay mugdigii uu ka saaray, yacni xuudka calooshiisa uu ka soo bixiyey. waa maalinkii nebi Muuse calayhi salaam Ilaahay cadowgiisa uu ka badbaadiyey, uuna halaagay Fircoon iyo asxaabtiisii. waa maalinkii nebi Ciise calayhi salaam Ilaahay samada uu u kor yeelay. waa maalin darajo u leh ummadda islaamka oo dhan. maalinkan waxaa jira oo sunno ah in la soomo. soonkeeduna waxa uu ka yimid kadib markii nebi Muuse calayhi salaam Ilaahay uu ka badbaadiyey Fircoon iyo asxaabtiisii. nebi Muuse maalinkan waa uu soomay, dadkiisuna waa ay soomeen. sidaas ayayna ku timid maalinkan soonkeeda. kadib markii xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam uu u soo hijrooday Madiina, sannadihii ugu horeeyeen ayuu waxa uu arkay yahuuddii deganeed Madiina iyaga oo maalinkani soomaya. markaas buu rasuulka weydiiyey sababta ay u soomayaan, oo waxa uu ku yidhi, oo maxaad u soomaysaan maalinkan? waxa ay ku dhaheen, waa maalinkii nebi Muuse Rabbi badbaadiyey, Fircoonna uu halaagay Rabbi. nebi Muuse ayaa soomay shukrin uu Rabbigiisa ku shukrinayo. annagana ku dayasho aan ku dayanayno nebi Muuse ayaan u soomaynaa maalinkan. xabiibkeenna sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, annaga ayaa idinkaga xaqnimo badan Muuse, oo aan isla nahay ahlu tawxiid. intaasi kadib nebiga maalinkan soonkeeda waa uu amray, oo markii koowaad waajib ayayba ahayd, balse kadib markii la waajibiyey soonka bisha Ramadaan ayuu sunno naqday maalinkan soonkeeda, maadaama Ramadaanku uu ka fadli badan yahay maalinkan. bilaha soon la soomo waxaa u fadli badan bisha Ramadaan sidaan la wada soconno. kadibna darajada labaad waxaa ku jira bishaan aan ku guda jirno ee Muxarram. waa bil iyada oo dhan fadli leh, inteeda badanna in la soomo ay wanaagsan tahay, inkastoo maalinkani sunno qurux badan uu yahay. kadib markay maalintani noqotay sunno, sanadkii u dambeeyey ee uu rasuulka noolaa ayaa saxaabadii waxay dhaheen, rasuulkii Ilaahayow, soo ma ahayn in aan khilaafno yahuud, maadaama aad adigu nagu tarbiyaysay inaan khilaafno yahuudda. rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, hadduu Rabbi nafta ii baaqi yeelo sanadka soo socda, waxaan soomi doonaa Taasuucaa iyo Caashuuraa, aw kamaa qaala calayhi salaam. sidaasi waxaa sunno adag ku noqotay in la soomo 2 beri si loo khilaafo yahuudda. maalinkani waxay ku aadan tahay sabtida horteena ah, waxaana sunno ah in maalinkani laga hormariyo maalin ama laga gadaal mariyo maalin, yacni in la soomo Jimco ama Sabti iyo Axad si aan u khilaafno yahuudda. fadliga maalinkan Rabbi uunbaa og, maadaama uu Rabbi yidhi, soonka aniga ayaa leh, aniga ayaana abaalmarinaya. aysan jirin qof og abaalmarinta saxda ee laga helayo soon walbaahi, balse rasuulku wuxuu yidhi, Rabbi waxaan ka malaysanayaa inuu ku dhaafo sanadkii la soo dhaafay. maalinkan aan ka faa'iidaysano insha Raxmaan. inteena aan awoodin ee uu cudurdaar u jirana Rabbi caafimaad ha siiyo. waa maalin wanaagsan soonkeeda. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa wax walba uu nebi Muxamed weydiistay, waxaan ka magangelaynaa wax walba uu xabiibka ka magangelay. intaa muuqaal midkaan la mid aan ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo korkiina Allah ha yeelo.